kulanto wanaagsan oo wacan waa markale ciyaarihii falaqeyntii markan waxaan ku soo qaadanay ciyaarihii Premier League ariya marka lama dhigi karo ilmo yar Premier League ilmo yar ka ciyaar lama dhigi karo Tottenham ciyaarta dhaxmartay Tottenham iyo Manchester United ayaa waxay ku dhamaatay 6 gool iyo 1 ay ku dhamaatay waliba goolka ay la hormartay Man United waxa kale mucjiso ah kooxda Liverpool ahayd oo dhawaanahan oo isdheeyay aniga champion aniga Premier League qaada oo looga badiyay 7 gool iyo 2 looga badiyay waliba ciyaartaas waxay ku dhiman kartay 7 9 10 waa looga badin kar Liverpool Aston Villa ciyaartii la soo baxday inaba maanta caadi ma caawada way ciyaarta soo badhigtay Liverpool koriyo hoos ciyaarta lagu watay iyo waxa kale ku soo qaadan Arsenal oo 2 gool iyo 1 idin ku baysay iyo Leicester City naftirkooda dhigax loo laabo kooxda West Ham ay dhigax u laabtay si fiican u dirtay markuu soo dhawaada falaqeyntii oo Fiston hadda si fiican ugu soo dhawaada marka waxa laga dhacay ciyaarta Manchester United iyo Tottenham guriga waxa lagu ciyaaray Manchester United lagu ciyaaray waa ciyaar kulul ah si fiican xamaasada si fiican loo sugay dadka ay sugayeen runtii waa liyaaba ciyaartii dad ay ku isla markiiba saa u bilaawtay ayaa ninka Bruno Fernandes ayaa wuxuu la helay gool kulaad oo rigoor u helay isla markii rigoor u helay isla markii waa la baraajiyay isla markii san ayaa baraajiyay hal noqotay ciyaartii hal aadana 2 laga dhigay iyadoo 2 ayaa hadana waxa ciyaarta laga saaray Martial oo la sii ka guud asiga la meel isku dhac la maal ee dhaxmaray ciyaarta halkeeda ka sii socotay iyadoo halkeed ay ka sii socoto Tottenham weerarkeeda la yaabana ayaa ciyaartii waxay socotay hadana san ayaa goolka ka dhaliyay hadana Harry Kane ka dhaliyay ciyaarta first half ka hore waxay ku dhamaatay galinka hore waxay ku dhamaatay 4 gool iyo 1 ay ku dhamaatay Manchester United goolka la hormartay markii la soo laabtay labada gool kale ayaa loogu daray oo Serge Aurier difaac dambeedka kaga ciyaaray Tottenham ayaa kaga ciyaaray ka dhaliyay Harry Kane ku soo qatimay marka ma aan Mourinho Jose Mourinho maanta la yaabay Mourinho waxa leeyahay maanta miyuu argusaday Mourinho ma aan Mourinho waxa leeyahay maanta uu argusaday kooxdii uu tababaraha u soo ahaa ayuu ka argutay in guuldar in caadi taas waxay ku tusinaysaa Manchester United waxay tusinaysaa qaladaadkeeda inay suuqa kala iibsiga ee aad ciyaartoy fiican ay soo gadato waa u jeedaa ciyaarta iyo garoonkooda gurigooda ayaa lagu basida gurigooda 6 gool iyo 1 lagu ayagoo guriga Old Trafford joogan taas waxa ka daray taas ciyaar ka darnaa jirtaa taas wax soo dhaafay marka sanadkan waxa leeyahay Premier League ilma yar way ilmaha sanadka ilmaha Premier League waa silo dhahay kooxda Aston Villa sanadka hore laga yaabana oo u laaban gaartay heerka labaad horyaalka ka dhici gaartay ayaa hadda sanadkan waxay soo difaaciye badan soo qaadatay waxay soo qaadatay Chelsea ciyaaryahan ka soo qaatay Arsenal iyo gool haay ka soo qaatay gool haay ku soo qaatay 20 milyan ay ku soo qaadatay marka ay ciyaartoyda hore isku shaadeen ayaa maanta waxay ka hormaacay kooxda Liverpool kooxdaas horyaalka كان هذا هريالك الدفاع عليه مركو حياته سو حيكون متدوق جول لبا مدحين الله كو هريالك الدفاع عليه سو هريالك سنه هريالك قاتل او تدوق جول لوغو بدي مدحين على تاريخ ده waxaan ka ahayn Liverpool ay hadda ku sameynaysaa Liverpool toddoba gool iyo laba loogu badiyay waxa ugu dambeysay 1972 labadii ay ugu dambeysay Liverpool ciyaar toddoba gool iyo laba loogu badiyay marka waa yaabay ciyaaraha maanta la yaabay toddoba gool iyo laba Liverpool Liverpool اللي يبيعي عيارتن وعيار اللي يابنا بس انا وحاب اسدين ليفربول ما تشبه كبنت لكن انت اساس اي كانوا حكومه مارتين وقول جيبيه انا مقنايو iyo waxa kala saadiyo maana anaga maqnaayo asal saadiyo maana anaga maqnaayo oo naga jir koon nafarat noo dhaciyo wax iyo Thiago iyo wax bay sheeganay laakiin sidaas martiyo maha toddoba gool iyo laba wiligeed ma ciyaar koox kooriyaalka difaaca toddoba gool lagu badiyo waa mucjiso awalka hore waxa la yaabana Manchester United la yaabana Manchester United oo looga badiyay 6 gool ayaan la yaabana oo afka aan la haysanay laakiin Manchester United hadda waxa la tii Manchester United waxay rabeen noqoto 7 gool baa ka dambeysay ariya caawa madax badan waa xanuuna dad badan biri ta arkay dad badan biri waa kala dhuma doonaan biri la islaami doona meena taageerayaasha Liverpool iyo taageerayaasha Manchester United waxa leenahay biri alla ciyaar baa ka dhacday maxaan Jose Mourinho waxa leeyahay maanta aad ayuu argutay kooxdu uu raadinay oo ka fiijisay sharaftiisa ku ciyaartay ayuu ka argutay nacamkii laga soo tagana kooxda Arsenal ayaa galin hore maanta waxay ku baasayeen 2 gool iyo 1 ay ku baasay oo 2 gool dambe qaybihii dambe ciyaarta ay dhalisay 2 gool dhalisay 1 gool laga dhaliyay ciyaarta soo ku soo dhamaatay sidaas Arsenal waxay ku leedahay hadda iyadoo 9 dhibcood leh 12 dhibcood tagaysa
ay tablaad tagaysaa hoggaanka Premier League waxa haya Everton afartii ciyaarad soo badisay waa la yaabay naftirkeeda macaan Carlo Ancelotti kooxda wuxuu ku soo suubiyaa leeyahay markii in calaamad soo tagana kooxda Leicester City ayaa maanta naftirkeeda dhagaha loo laab 3 gool ever gurigooda lagu baday West Ham United ayaa kaga basay ay waxa uma isbuucan waa laga yaabay isbuucana ariya isbuucan waa laga yaabay isbuucan waa yaabay ciyaari inta maanta dhacay waxa kaloo maanta ciyaartay kooxda Real Madrid ayaa 2 gool ku baysay Vinicius Jr Benzema ayaa u kala leeyay 2 gool ay ku basay waxa kale hadda socota Barcelona hal maraysa hal gool laga hormaray way baraj ayda Sevilla waa ciyaar kale waxa kale ciyaar maanta ciyaar Juventus way baaqatay ciyaarteedii aydi Napoli Juventus dib baa loo dhigay sabab jir ogeed marka u soo laabano xagga Manchester United iyo Manchester United iyo Liverpool maxaa ka qaldan leeyahay waa yaabanahay ciyaarta waa la yaabiyay hadii qof dhan horta Man United gurigooda joogan iyada Old Trafford joogan ayaa waxa looga badiyay 6 gool loo badiyay waa la yaabiyay waxa kale ka sii yaaban taas anaka taas la yaaban dhagaa la sii qabsana waxa ka sii yaaban kooxda Liverpool ayaa ka soo ka daray dib dhaxdaba wixii dhan soo dhaaf haddii Liverpool 7 gool ma badicin weligeed 7 gool iyo 2 koox horyaalka difaacanaysa weligeed ku badicin laakiin waa liyaab macna korob qosol ku bixi marwa fadhiista marwa kaca wayaab laakiin macna illa heer wuxuu gaaray markii ciyaartii markay dhamaatay oo taageerayaashii waxa la ciyaaryahanadii Aston Villa ugu tagay garoon gudihiisa ciyaartaas waa liyaabana waxa kale ciyaartaas Aston Villa waxa la macalin la wata waxa macalin tababarka xigeenka waxa John Terry ciyaaryahan kore Chelsea difaac ciyaar jiray John Terry ayaa tababarka xigeenka marka la yaabay khibradan eebay ka keenay kabtankoodana hadii ciyaarta soo 2 gool ayuu dhaliyay kabtankooda waa la yaabay yahay wuxuu sameeyay ciyaar inaba caadi ahayn uu sameeyay 2 gool ayuu dhaliyay waxa kale hadan mucjiso si ciyaaryahanka Arsenal iska soo fasaxday had waa la yaabay yahay Arsenal sababta iska asadarad wuxuu dhahay aniga Arsenal maadaama ka tag waa hormar aniga hor u qaado dhahay marka waa la yaabay asar gool hayan Arsenal isku soo fasaxay waa gool hayan mucjiso leh waa gool hayan ugu dambeeyay Liverpool ka badiyay gurigooda horyaalka Premier League ka badiyay waa gool hayan ugu dambeeyay way isla asaga hadana ka badiyay hadana Aston Villa ciyaartii hore wuxuu ka badiyay sanadka hore markuu ciyaaray Premier League wuxuu ka badiyay 2 gool iyo hal kaga badiyay Liverpool hadana wuxuu kaga badiyay 7 gool iyo 2 wuxuu kaga badiyay waxa kale ka qaaday Community Shield kaabkii la dhigay ka qaaday marka xalay gool haya Arsenal ay ka soo gaartay jay Emi Martinez waa laga yaabay waxa loo suubiyay inuu Liverpool uga badin lahaa ayaa loo suubiyay leeyahay waa laga yaabay goolkiiban waa goolkiiba mucjiso leh ciyaaryahanada Aston Villa inaba si caadi ah ay ciyaareen oo isku waxa u maleysaba ciyaarta min bilow ilaa dhamad wax difaac ay galeen Liverpool wax difaac loo galo mar waa weerar baa lagu hayay weerarkaas oo isaba joogs aan waxay isdhaay ilmaha waa yarihiin difaac bay gali doonaan wax la Mohamed Salah ay kulli meel ba Firmino waa Mohamed Salah ay rorana Firmino warkiisa waa joojiba ay ariya Premier League wax yar ma jirto dad yar ma jira Premier League isku tasho nin walba isku tashto hadda ka dambe ciyaaraha ay falanqeynta intaas ay ogtahay tani kulanti dambe waxaan leenahay sidaas nabadgelyo fadlan dad noo subscribe noo saar hada horna jeegta commentiga noo soo qor dhiirgelintiina waa shaqeynteena insha Allah nabadey bye